telefishanka Bulsho TV oo subaxnimadii hore ee saaka u kurgalay halka ay marayso wadada dhismaheedu socday sanadihii u dambeeyay sidoo kalena xiriirinaysa gobolada Sanaaga iyo Togdheer wadadan oo waqti xaadirkan gabagabo ah ayaa waxaana sidoo kale goobahaasi kala duwan ee aanu cagta dhignay kula kulanay shaqaale weynaha wadadaasi oo ku guda jira dhismaha shaqada ballaaran ee wadadan lagu dhameystirayo injineerka guud ee wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliland injineer Xuseen Maxamed Cumar iyo sidoo kale sayidka guud ee wakaaladaasi injineer Axmed Mahdi Cali iyo waliba maamulaha madaxa gaadiidka ee isla wakaaladaasi oo dhankooda gudashada waajibaadka qaran ee saaran ee ku aadan dhameystirka wadadani si hagar la'aan u gudanayay ayaa si wada jira ula hadlay Bulsho TV waxayna sheegeen in daamurkii ugu tirada badnaa oo xukuumadda Soomaaliland ugu tala gashay dhameystirka wadadani uu soo gaadhay sidoo kalena faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay habsami u socodka wadadani inaanu maanta daamurkii noo yimi oo aanu muddo sugaynay wadadii Ceergaabo 22 kilomitir baa harsan 22 kilomitir daamurkeedu wuu maqnaa ilaa 2 bilood baan sugaynay hadda wadadii inteeda kale waa noo fiinal 22 waxaan noo fiinal ahayn 2 kilomitir 20 kale waa noo fiinal haddii Ilaahay yiraahdo muddo dhow waanu soo gabagabeynayna waxa taa sharaf iyo karaamo aan ugu mahad celinaa waliba madaxdayada ugu horeeyo wasiirku uu ku xigo mareeyaha guud iyo madaxayaga mashruuca kiisii bilownay insha Allah bismillaahi kariim walow ay wadadiiba dhamaatay inta yar gabagabadaanay makaanu israacineynaa sida fiican ee loo soo tabaabulsheeyayna waxaan uga mahad celinaynaa wasiirka iyo maareeyaha soconaya waxaan ku rajoonaynaa sida ugu dhaqsaha badan leh inay inagu soo gabagaboodo bisha July oo doonayna inaynu ku soo afjarno daamurkaas iyadoo ay ku jirto bishii Ramadaan inta badan shaqaalaha la fasaxo runtii waxa weeyaan mashruuc Ceergaabo oo 274 waa gabagabo goobtaynu joognaana waa wardheer oo daamurku ku rogayno yanda qayb kamid ah afar qaybood baan yaan ku kala rognay oo ah tuurka wardheer hereeri sagaala iyo meesha la yiraahdo Gaabdeere Maxamed Gumburi telefishanka caalamiga Bulsho TV garada